Diyaarado dagaal oo ilaa iyo hadda aan la ogeyn dalka laga leeyahay ayaa Duqeyn waxa ay 24 saac la soo dhaafay ka geysteen deegaano ka mid ah gobolka Gedo, gaar ahaan deegaano hoostaga degmooyinka Garbaharre iyo Ceelcadde oo gobolkaasi ah. Wararku waxa ay sheegayaan in diyaaradahan ay si gaar ah u bartilmaameedsadeen xarumo ay Al-shabaab ku lahaayeen deegaanada kala ah Warcadde, Kurtun Dooble iyo sidoo kale Libaaxlow. waxaana duqeyntan ay geysatay khasaare isugu jirta dhimasho iyo dhaawac. Inkastoo aan si rasmi ah loo heenin khasaaraha ka dhashay duqeyntan, ayaa haddana dad ku dhow halka duqeynta ay ka dhacday waxa ay sheegeen in meelaha la bartilmaameedsaday ay ku jiraan xarumo Al-shabaab ay lahaayeen, iyadoo aan la ogeyn waxyeelo inay shacabka ka soo gaartay halkaasi iyo in kale. Deegaanada Jubbaland waxaa inta badan duqeymaha sidan oo kale ka fuliya diyaaradaha Mareykanka iyo sidoo kale kuwa Kenya. Dhanka kalena 24 saac la soo dhaafay xubno ka mid ah Al-shabaab 4 ruux ayaa waxa ay isku dhiibeen ciidanka xoogga dalka ee ku sugan gobolka Gedo, gaar ahaan degmooyinka Garbaharre, Doow iyo Baardheere. Saraakiisha ciidanka xoogga dalka oo ka gaabsaday in ay warbaahinta si toos ah ula hadlaan waxa ay sheegeen in ay dib ka faahfaahin doonaan raggan ka soo baxsaday Al-shabaab ee dhankooda isku soo dhiibay iyo sidoo kale waxa ay yihiin. Maxamed Abukar, Goobjoog FM.